classmates, schoolmates, guests, hosts, listeners, spectators, intellectuals, organization, zealous, companions, learners, managers, men or women, especially my unforgettable preceptor. munaasibadan ballaaran oo saacado badan si weyn looga soo shaqeeyay ayna ku qalin jabinayeen 115 arday oo baratay culuumta kala duwan ee lagu barto maxadka luqadaha ee Smart International College ee lagu qabtay magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool. munaasibadan waxaa goobjoogayaal ka ahaa waalidiinta ardayda maanta qalin jabinaysa, macallimiinta jaamacadaha iyo dugsiyada sare, barayaasha maxadka ardayda maanta qalin jabinaysa iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. waxaana halkaas lagu soo bandhigay riwaayado, suugaano iyo madadaalooyin kala duwan. ugu horeyntiina waxaa dalka u kala dambeeyay maamulka maxadka iyo martida halkaas ka soo qayb gashay, waxaana kula dardaarmay ardayda inaysan ka daalin halganka waxbarasho. marka saddexaadna waxaan u mahadcelinayaa oo u hambalyeeynaya oo aan bogaadinayaa ardayda qiimaha iyo sharafta leh ee college-ka maanta ka qalin bedelanaysa. taariikhda maanta 16 bishii 2 2020 waan u hambalyeynaya waxaan leeyahay congratulations. college-ka Smart wuxuu ka mid yahay kulajada gobolka kuwa ugu sareeya. college-ka waxaa la aasaasay 2017 bishii 2 ayaa la aasaasay. ujeedadii loo aasaasayna waxay ahayd in ardayda laga dhiso oo kor loogu qaado la tayeeyo dhanka luqadda. taasina waxay keentay inaan haddana meelo badan wax kaga soo kordhino oo meelo badan oo baahi loo qabo oo aan waxa weeye dhammaystirno oo aan quality-ga aqooneed kor u qaadnay ardayda. college-ku wuxuu aasaasan yahay muddada 3 sano ah. dufcadayda hor fadhidaa waa dufcaddii saddexaad ee ka qalin jabisa college-ka, waana dufcaddii ugu badnayd ee college-ka intii qalin jabinayeen dufcadeed. cadadoodu waxay dhan tahay 115 arday. taagan haddii alla ka dhigo meel walbaan joogana mar walbaan jecelahay farxadiina inaan ka qayb qaato ama aan idinku hago. inta haddaan ka gudbo qodobkan bulshada leeyahay, qodob baan u gudbayaan ardayda odhanayo. ardayda maanta qalin jabinaysa ee tirada intaa la gaaraysa horta farxadiina waan idinla qaybsanaya. waxaan idin leeyahay hambaliyo waa dadaasheen, meel fiican baad soo gaadheen, waxaad tihiin ubax qurux badan runtii oo iftiimaya oo macaan oo udgoon oo indhaha u ron. waxaan rajaynayaa mustaqbalkan inaad halkaa ka sii wadaan, inay noloshiinu noqoto mid hiigsi leh, inay noloshiisu noqoto mid intaad maanta koofiyad iyo gool xirataan inaydan bartaa ku joojin ee ay noqoto midaad sii wadaan oo aad gaadhsiisaan meel meeshaa ka sii sarraysa insha Allah. waxaan rajaynayaa hooyooyinkiin iyo aabbihiin idinku soo barbaaray, habaryarihiin iyo ayeeyooyinkiin iyo eedooyinkiin inay idinku farxin doonaan maanta iyo maalmo kale oo badan. waxaan idin rajaynayaa noloshiinu inay noqoto mid maanta aad haysataan mid ka sii farxad badan. waxaan idin rajaynayaa inaad halka aad ka wadaan dadaalka Smart. maanta waxaa laga yaabaa inaad kala tagteen, inaad buuggeeda iyo qalinkeeda isku laabtaan, waxaa laga yaabaa inaad macallimiintiina kala fogaataan, laakiin yoolkiinu yuusan noqonin mid Smart ku kooban, yoolkiinu yuusan noqonin iyo dadaalkiinu midaad college ku wadeen. haddii macallimiin da'yara oo idin khasbaya oo idin jiidaya oo idin waday ay mar walba idin garab taagnaayeen oo aad u gudubtaan kuwa iyaga ka waaweyn, kuwa daalay, kuwa gaboobay, kuwa caajisay, kuwa ka firfircoon, dadaalkiinu inuu sii lama laabmo mar walba. waxaan kaloo u hambalyeynayaa waalidiintii ku soo tacabtay ee soo barbaarisay ardadan intii ay ku soo jireen halganka waxbarashada. waxaan filayaa waxaa lay 215 arday oo 2 qaybooda oo dufcaddii saddexaada baa ka qalin jabinaya. waxaa muuqata marka la eego ka soo qaybgalka iyo dhiirigelinta waxbarashada ardada inay ka liidato xagga waalidiinta, waayo waxa ay ahayd in 100 waalid ay yimaadaan dhinaca bannaan ee aad moodo in jaaniskaasi lumiyeenna waa xagga aabbaha, waayo hooyadu waxbarashadoodii iyo noloshoodii bay la halgamaysaa. odayaasha waxaan leeyahay carruurteenna haddaynaan dhiirigelin markay waxbaranayaan, markay qalin jabinayaan, waa qayb ka maqan. soo qayb gashay xafladan aadka iyo aadka u qiimaha badan ee unuga iyo miisaanka weyn. intaan markaan ka soo gudbo college aniga abwaanida ma yihiin hal
keentay tixdan yar farxadda iyo maxaan ku sheegayay ogaadinta aan u qabo kolleejkayga iyo macallimiintayda aadka u qaaliga aniga oo soo dhiganayay sanad iyo 4 bilood kolleejka kuna soo dhiganayay free anigu ardayad lacag laga qaadan maahay nooga dhawaajiyay in ardayda aan fiiga awoodin ama aan fiiga bixin karin ama waxbarasho bilaasha kolleejka lagu soo kordhiyo uu leeyahay kolleejka waxbarasho bilaasha aniga iyo arday kaleba free baan ku dhiganaa bacda intaa waxaan u gudbayaa maansadayda yaanan tirin waan ka gaabsaday hadduuse ii iftiimo maanto haddaan si tabiyo maanto kaluu ii iftiimaaye hoygan aqoon iyo hibaba eebba ugu deeqay hoygan saqiir iyo kabiir lagu astaynayo hoygan dhalaal iyo habeen lagu dareerayo hoygan dunida muujiye lagu nagaanayo hoygan tacliin iyo aqoon lagu tisqaadayo hoygan aqoon iyo tacliin lagu tisqaadayo hoygan tartiib lagugu tusi waxaad ku baranayso baa ka qalinjabinaysa dhalinyarooy horumar baa u socotaa mustaqbal baa dufood saaraysaa haddaana ilaahay ka biqi subxaanahu wa tacaala waxba ku hagaagayaan alla subxaanahu wa tacaala waa allaha kuu fududeeyey maanta inaad aqoontaa soo baratay shahaadada qaadatid ilaahi subxaanahu wa tacaala aan ka baqno markaan leenahay alla aan ka baqno waa inaan alle subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa qaadanno waxyaalaha alle subxaanahu wa tacaala naga reebayna aan ka hadhno intaa baa lagu soo ururin karaa cabsida ilaahi way fara badan tahay haddaa gabadha ay lebisanayso lebiskeeda kii sharciga ay lebisato waa alla ka baq wiilku hadduu iska daayo timaha sida xun loo jaro oo sharciga aan ahayn waa alla ka baq marka alla ka baqu waa fara badan yahay waxaa lagu soo koobi karaa inaa ilaahay amarkiisa qaadatid waxaan ilaahay raalli ka ahayna aad dhammaan bannaanka iska dhigtay maadaan dad muslima nahay alla subxaana wa tacaala wuxuu noogu naxariisanayaa alla subxaana wa tacaala inagu tabantaabina inagu horumarinayaa cabsidiisa iyo markasta inaan waajibaadkayno saara gudano ii ogolaaday inaan kala soo qayb galo saaxiibadayda smart xafladda tanaheerka sare ah ay u dhigayaan dhallinyaradan quruxda badan ee maanta ka qalin jabinaya kolleejka waqtigoo aad u kooban daraaddiisa waxaan hadalkayga ku soo maanta runtii farxad gaar ay tahay inaan kala qayb qaato qalinjabintiina anoo ku hadlaya afka kolleejkan cusub oo hadda magaalada magaranaysa ee laga daafuray Global International College iyo macallimiintiisa oo ay ka mid yihiin macallinka hadda halkan taagnaa aad iyo aad baan dhammaanteed idinku bogaadinahay uguna faraxsannahay inaanu idinkala soo qayb galno xafladdan runtii waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa macallimiinta oo idin soo barbaariyey maanta heerkan idin soo gaadhsiiyey waxbarasho idinkoo ka kooban sida uu maamuluhu sheegay college Mr. Xamse saddex magaranaysa departmenti qayb Ingiliisha iyo qayb caafimaadka iyo qayb Carabiga aad iyo aad baan idinku bogaadinayaa heerkan aad soo gaadheen horta waan idin hambalyeynaya muddadii iyo waqtigii iyo juhdigii aad ku bixiseen cilmigan aad barateen maalinkiinana waanu idinla qaybsanaynaa waana idinla qaybsanaya waana idinla faraxsanahay hambalyo barashadu haddii aysan naftaada bedelin haddii aysan bedelin qoyskaaga haddii aysan habdhaqankaaga bedelin wax alla wax Cabdiraxmaan iyo saaxiibadii ay ku tareen ma jiraan waa inaad berri ka maalin iska dhaafi kartaa dagaalka waa inaad muranka aan dantu ku jirin iska dhaafi kartaa waa inaad baran kartaa sidaad hooyada iyo waalidka ugu ixtiraami lahayd waxbarashada aad baratay waa inaad barataa sidii aad ugu anfici lahayd laakiin haddaad intaad koofiyad xidhatid markaad iriddaa ka baxdid aad hawlahaagii halkii ka sii wadatid haddii aad ku sii jirtid inaad WhatsApp-ka ku gaadhid inaad 2 habeennimo ka baxdid aroortiina aad ku gaadhid inaad 11 subaxnimo soo toostid waxbarashadii aad baratay maxay kaa bedeshay muxuu ahaa gabaygii haddii kuwa kuu kordhaa gabow mooye ku tarin garaad ilaa waxba dhaatid geed Soomaaliya haddii koofiyadahani maanta intiinan dhalinyarada aysan waxba ka bedelin wax alla waxa barateen ma jirto qodobka ugu dambeeyaan idinku dhiirigelinaya waxa weeyaan wadaninimada waxa la dhaho qof kasta oo idin kamida waxa xil idinka saaran yahay dalka aad joogtaan waxa wax ka saaran yihiin waxa weeye bay'adda iyo bulshada aad ku nooshahay adduunka waxa ka mamnuuca caagadaha biyaha aynu ku cabano in marka aad ka laasatid aad banaan ku tuurtid waa meesha ugu hooseysa wadaninimadu ay ka bilaabato adduunka waxa ka mamnuuca
in marka aad banaanka marasid chocolateeka waraaqda yar aad ka cuntid inaad banaanka ku tuurtid ilaa inta aad dustbin ka helisid waa inaad gacantaada ku sidataa horta bariina waxa ka yimaado waqti adag baan soo wada marnay oo macallimiinta iyo maamulka iyo college-ka waqti adag baan la soo mareen waxaan horta doonayaa inaan bogaadiyo dhammaan ardayda aan si gaar ah qolada caafimaadkana sii bogaadiyo يا قلنا عفات كان سيجارة أنا أسيب بقاديو قلنا إنجليش كان سيجارة أسيب بقاديو قلنا إنجليش كم حلا هاي صارتين وأن كل حشرتان واحد هاي سوي جدي بعد هاي سنة هكذا بيحنا سي هاي سي ولا تبيسو كرديو عاديات بينو كهم بليلة يا دمان أرضي دقل تبي سي سكوجو ترتا كليتها عافمات كيو لغة language عاديات بينو كنتر نيهم بليلة يا هم بليو بلنتين وسمارتي يو دمانتين نسكو حدنانو عاديات بينو بقادي sidoo kale runtii ardayda caalamka saaran waxa weeyaan waa arday u qalanta maanta shahaadada ay qaadanayaan waa arday bedeli karta waxa weeyaan aqoontoodina waxa weey gudbin karta runtii aan ku faani karno dhigi karno waan ku nasan karnaa saad ka arkisay halkan sidoo kale college-ku ma aha kaliya luqadda English-ka iyo health-ka inuu bixiyo wuxuu bixiyaa journalism waxa weeyaan saxaafadda oo lagu soo kordhiyay marka bulshada ay la socoto course uu ka kooban yahay saddexda qaybood qaybta hore waa English-ka iyo health-ka iyo waxa weeyaan qaybta saxaafadda oo soo birtay dhawaan marka waxa weeyaan ardayda meesha fadhida dhammaantood arkasaan waxa weeyaan waa arday dulqaad soo sameeyay billion of students wala bilaabay ardayda aksa maanta ka qaljimanayaan 115 arday wardooki salaamu calaykum عليكم السلام معلم يورا المعلم سيتهم وفي أنا سيتها هنا كورة حالته ما شاء الله معلم ما شاء الله هذه أطباق في عنا ويلك وإحنا ما ويلك يجي ويلك يجي قول له يورا الله هو وين هذا وني ويلك بريان وقصة دراه اتحمدنا إني لبعتنهم بقرانا يا هم وشو حكوا حنا بريان قبل يربطي هذا الفيديو أكتر قبلها يريون ويلك وبعديها وحلوقة كان قبلها يريون وني ويلك بعديها لغة كيكة وين أسواقها ورحت أنا ميت بام وضاي واكل أهلك الشيء أدير بارو هايو أدير بام كنا وضاي بتير جمتير باب هذا ومشي عنوي والله السلام عليكم ورادر ما أرضي قصوا هذا هو محمد أحمد شامع محمد بدانشي بدان ميديا لا سعنو